dadka salaada tukanaya shan buu u kala qaado wuxuu yidhi qolo salaada ay tukato adduunkan iyo aakhira ilaahay waa ku cadaabi buu yidhi waa kuwee waa kuwa salaada marna way tukadaan marna way ka boodaan marna way tukadaan marna way ka boodaan awqaadeedii iyo jawaamicdana kuma ilaaliyaan buu yidhi fawaylun lilmusalliina aladiina hum can salaatihim saahuun salaada way tukadaan laakiin awqaadeeda xilligay rabaan bay tukadaan kuwa adduunkan iyo aakhira salaadooda ilaahay waa ku cadaabayaa baa la yidhi qolada labaad waa qoladee salaada way tukadaan jamacana way ku ilaaliyaan masaajidana way yimaadaan laakiin qalbigoogu xaadir maaha min albidaaya ila annihaaya salaadoodu waa sahwi kuwaana salaadoodu ilaahay bay hor taallaa hadduu doono ilaahay waa ku cadaabi haddii uu doono ilaahay waa ugu naxariisan bay culimmadu yidhahdeen salaada saddexaad waxa weeyaan uu tukanayaa salaada jamaci iyo jamaacaddii masjidku ku ilaalinaya laakiin markuu salaada yimaadana wuxuu bilaabayaa jihaad buu bilaabayaa qalbigiisii buu shaydaanku la tegayaa deedna uu ka soo celinayaa haddana uu la tegayaa uu ka soo celinayaa kaa salaada intuu la yimidayna ilaahay baa u qorayo ka aqbalaya inta ka dhimana ilaahay waa ka cafinayaa baa la yidhi salaada saddexaadna waa salaada maaragtaane awliyada istaciinuu biالصabri والصalaa waa kuwa maaragtaane xawaa'ijtooda baahida ay leeyihiin markay arrini ay la soo daristo waxay leeyihiin salaad baan ku ordayaa hadday cedeedda iyo dayaxa isbeddel ku dhaco salaad baa loo jideeyey hadday abaari ay timaaddo salaad baa loo jideeyey hadday cabsoodaan salaad baa loo jideeyey hadday masiiba ku dhacdo salaad baa loo jideeyey hadday muraad iyo xaajo yeeshaan salaad baa loo jideeyey hadday arrin khayr iyo shar inay u leedahay kala saari waayaan salaat alistikhaaraa loo jideeyey istaciinuu biالصabri والصalaa duulka afraadi waa duulkee xawaa'ijtooda adduunyadana ay leeyihiin waxay muraad leeyihiin hebel iyo heblaayo noogu sheeg ma yidhaahdaane masaajidka intay soo galaan bay baahidooda ilaahay u sheegtaan